dad badan baa la dhageysan adiga oo kashar saddex maalmood haye adiga shuruudada maxay ani abdi ilayna rido way aan saaro nin dir ah inaan saaro baa waajib ah dhageystooday inaan abdi ilay ka qaado nin dir halka saaro nin dir ah xaq isagaa ku xaq leh nin mataqana man nin isaaqa khabar yunusa intuu jijiga yiraahdo madaxweyne uu noqon kara laakiin adiga ogaadi waa gardarro hatta inaan noqoto gudoomiyaha meel xaafadda anaga iga sharta inaan rido ba isharada ma yidhi adiga shuruud waxayna sahabar yoonisa waa ninkii shalay u talinayay asagaa iskale waana dhulkiisi waana ninka ka waxaasmayo aniga waxa ii shuruud ah waxaad ka qaadi kartid ma jirto wallahi cabdi ilay wuu joogayaa oo bilaahi wuu joogayaa annaga xoog buu ku joogayaa aniga waxa madaxweynaha madaxweyne uu noqonaya war annaga rabnada maadaa keensada meesha waaye saddex maalmoo shuruud adiga maxaad anigu waxaan inaan rido nin dir halkaas geysto de nin dir oo dhulkaas leh isagu xaq ku leh adiga xaq kuma adiga waa gardarro adiga wada kilka shanaad adiga waxaa tahay 3% bay ka tahay isaaq baa kaga badan gadabuusi baa kaga badan isaaq baa ka badan iyagoo dhan markay waa dir baa la yiraahdaa horta adiga waxaa kaga badan gabooye baa kaga badan gabooye aad gumaysanaysiin baa iyagii baa dad gob weeye mataqaana dawad ugu sharaf soo ma hadalkii soo gabagabay hadda ma waxaad leedahay yani nin tigre ah nin yani dhulkan nin Soomaali cidu doona ha noqdo qabiil annaga waxba nagama gelin kawdhe qabiil waa laga taga waqtigeedii kawdhe maanta haddii qabiil waxa ku markii la idinka adkaado baa qabiil laga tagaanaya wallahi waxa ka qaadin ee waxa ku sheegay cabdi ilay haddii wax laga qaado ya waxa ku maqan baan adiga shuruudeed saddex maalmood kadib haddii horta isoo wac أنا كسوة هذا صدق مع المقدم هذه نين دير لساري وايو صد within 3 days لكن أدي ما هكذا بني صدق مع المولى نافطو أدي ما هشروط هذا إيش أبو بودين يا أدي أولي waxaan ku sheegayaa anu kama hadlin yani aniga nin Soomaali ah qabiil ku doono qabiilka hadda laakiin abdiile qabiilkana shalay ka hadlaysin shalay bay haysteen way ka madaxeynayeen laba jeer bay soo noqdeen waa dhulkoodii waxa u dagaalamaya waa adiga taas ka bad meesha innaga aniga iyo adiga ruuxa imaanaya muhiim nooma ah laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa cabdi ilay inuu joogayo meelna u soconin meelna una aadin wuu joogaya laakiin madaxweyne ma noqon kareede wuu joogaya ma adigoo ah ina hadal amr aad bixisay waryaa amr aad bixisay wallahi cabdi ilay ku tagaynin de wuu joogaya saaxib aya horta wuu joogaya horta ani waan dila ma dhinte wuu joogaya okay laakiin ma noqon karo in hogaamiyo dadka sharafta badan isaga oo ogaadin qabiiliyad ah la oo minority ah waa dadka tigre insaar kowde mid kale baan ku sheegaya mid kale wanaagsan baan ku sheegaya ahmad madoobena wuu baxaya ahmad madoobe kismaayona wuu ka baxaya annagu duma Soomaaliyeed baan nahay Soomaalinimad ku wada hadlaynaa meel kale haygala hadlin qabiil haygala hadlin igalama hadli kartid anigu ninka qabiilka Soomaaliga markaan qabiil ka wada hadlayno waa wax annaga dhaxdeennada ma fahamtay aniga iyo adiga ani oromo ba adaa tiri oromo moogta waxa sababta ku Ethiopia kam hadlinde iyo oromo iyo gaadin ba ka leene adaa oromo tinsoma adaa oromo ba nagu suude oromo soma maadaama ti oromo ani gaadin baan ku gaadin kuma wada hadlayno oromo iyo Soomaali baan ku wada hadlaynaa oromona waa ogooda waa toddobaatan qabiil kamid ah Ethiopia wi oromo iyo Soomaali baan ku wada hadlaynaa oromo waxay ka tahay ugu ma aqaan markaan soo bartay ii sheeg kawde oromo waa isku oromo Soomaalina waa Soomaali wax la yiraahdo saaxib qabiil damba ku soo celcelina hadalku wuxuu ugu dambeeyay nin ragaa tahay nin ragaan ahay kawde adiga horta in rag maade adiga waxa tiri ani rag baan fuulan nin rag fuula waa kaniis baa tahay ragnimada waa ka baxday aad ka imaatay meel kasta oo ka imaatay wallahi billahi tallahi saddex maalmood waan ku kala baxayna waana ku